مدحلاتك حكومة مدحون المصبيحي هي حسب كلمية وحكسو وريكتي مدة صدح سنة كدب وحواجب نقوها هدانو حسب معارضنا هاي إنا نقيمينو برنامجيدي بلشدة أو بلانقادين وحي كبينوبي يوحي كهيرقلاي بوغاني وبوغي ololaha doorashada 2017 ilaa 2022 ee xisbiga kulmiye uu ku galay doorashada xisbi ahaan wuxuu baan ognahay 3 sano inay xukuumadda kulmiye u qabsoomeen 3 barnaamij oo kaliya waa bundada magaalada Boorama laga dhisay ee tagta jaamacadda Amuud waa banka magaalada Oodweyne laga dhisay iyo barnaamijka shaqo qaran waxaan hinta ahayn oo 3 sano dalka iyo dadka xukuumaddu u qabatay anagu garan mayno barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye wuxuu ka koobnaa 7 tiir tiirka koowaad ee barnaamij siyaasadeedkaasi waxa ka ahaa arrimaha bulshada arrimaha bulshada waxaa lagu furay oo la yiri waxaan wax ka qabanaa oo lambar 1 ka ah waxbarashada xisbiga kulmiye wuxuu sheegay inay sameyn doonaan dugsiyo hor leh heer magaalo heer gobol heer degmo heer tuulo waxa sidoo kale ay sheegeen inay dayactir ku sameyn doonaan dugsiyadii hore ee dawladii hore dalka ka dhiseen waxa sidoo kale ay sheegeen inay korin doonaan mushaharka macallimiinta waxa sidoo kale sheegeen oo ku qoran buugga laftirkiisa in la sameyn doono laabab saynisa in la sameyn doono laabab iyo librariyo weyn laga sameyn doono dugsiyada sare dalka waxa sidoo kale sheegeen in deeqa waxbarasho oo dunida laga helo oo fara badan ay raadin doonaan waxay sidoo kale bartan ku sheegeen inay mudnaan gaar siin doonaan waxbarashada dadka aan indhaha qabin dhagahana waxba aan ka maqlin inta marka laga yimaado waxay sheegeen in waxbarashadu bilaash tahay oo waxbarashada dalku bilaash ay noqon doonto qiimeynta bulshadu ay hayso iyo maragab iyo marxaatiga waaqac yaala waxaan ognahay in waxa intaas oo dhan wax ka qabtaan iska daayay dugsiyadii dawladdu lahayd inaan la tayahay dugsiyada private-ka macallimiintooda joogta iyo nidaamka wax u dhigaan inaan waxbarashada ay ballan qaadeen bilaash ka hadaan bilaash ahayn inaan laababka sheegan iyo librariyada sheegan lahayn dugsiyada sare ka sameynaa ayna sameyn balayna wax qabtaan iska daayay dugsiyadii sare dalka waxaan tusaale u soo qaadan karnaa dugsiga gacan libaax oo dayaca iyo daranyada ka muuqatay muuqaalka dugsiga markii uu adkeysan waayeen dadkii hore wax ugu bartay inta lacag iska ururiyeen inay si mutadawacnimo bulshadu ay iyadu u dhistay dugsiga dawliga kuwa kalena waa lamid waa magaaladii caasimadda ahayd in dalka inta kale la gaadho marka laga yimaado waxbarashada markaan bartaa kaga nimaano waxa qodobka labaad isaguna caafimaadka waxay sheegeen in heer degmo heer gobol heer magaalo iyo heer tuulaba ka dhisi doonaan cusbitaalo casriya waxay sheegeen in caafimaadka dalku noqon doono 95% boqolkiiba 50 mid la dhigma caafimaadka muwaadiniinta kale dawladaha dunida horumaraya ay haystaan waxay sheegeen inay sameyn doonaan gaadiidyo ka hawlgala dadka xanuunsanaya oo ambalaasyo ah oo gobol kaste iyo degmo kaste iyo tuulo kaste ay galeen waxay bartan ku sheegeen oo shaxda aad ku arkaysaan in agabka caafimaadka oo dhan cisbitaalada dawladdu u baahan yahay keeni doonaan waxaad ka warqabtaan berigii dhawatoola waxa aad dalka u soo galay cudurka coronavirus-ka cudurkaasi wuxuu inaga dilay dad fara badan oo labayn nooca waxaan ogeeyay dawladdu inay dadka wuxuu qabatay iska daayeen inay oskajiinadii dadka lagaga soo saarayay naqaska ambalaasyadii inay awoodi kari weeday inay iibiso inay dayactirto cusbitaaladii inay samayso xarunta coronavirus
oo dadka cusbitaalada babliga lagu hayay in cusbitaaladii hore dayactir aan lagu sameeynin in tuulooyinka iyo degmooyinka dalku hooyooyin fara badan ugu mul aroorayaan ambalaas la'aan ilaahay khayr badan ha siiye waxa kaalinta qaatay shirkadaha ganacsadeed ee dalka ama Telesom ha noqoto ama Dahabshiil ha noqoto ama kuwa kaleba ha noqotay iyaga ka hawl galay inay ambalaas iibiyaan inay oskajiin iibiyaan inay dhaqaale bixiyaan lacag ku dhow dhowr milyan oo dollar baa la ururiyay waxa loo dhiibay qolo la oran jiray gudida ka hortagga koronaha lacagtina meel ay tagtay wali alaanka iyo wax lagu qabtay iyaga sheeg waxa la aliyo caafimaadka dalka ka hirgalayna iyaduna ma jirto waa ballan qaadada beenoobay ee bulshada loo sheegay waxa bartan iyaduna ku qoran waa biyaha ballan qaadka xisbiga kulmiye wuxuu ahaa bulshada Soomaaliland inay biyo ku filan heli doonto oo laga xaqabtiri doono biyo ay dawladdu siiso iska daa in degmooyinka iyo gobolada iyo magaalooyinka kale la gaadhay caasimadda dalka oo lagu qiyaasa 100 oo lagu qiyaasa 1 milyan iyo badh inay dad ku nool yihiin ayay dawladdu biyo siin kari lahayd waxaana bulshada caasimadda u dhaamiya booyado iyo biyoolaya muddada 3 sano ah hal riig oo bulshada loo qoday ama meel laga qoday oo xukuumaddu ay ku faani karayso oo biyo soo saaray iyaduna ma jirto waa ballan qaadka beenoobay ee barnaamijkii xisbiga kulmiye waxa arrimaha bulshada ku jira oo bartan iyaduna ku qoran in door fiican laga siin doono ka qaybgalka arrimaha siyaasadda haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay inuu qalinka madaxweynuhu ummadda qabto oo door fiican ay siyaasadda ka qaataan oo miisaska talada lagu goonayo ay xaqooda iyo xuquuqdooda ka helaan ama haweenka ha noqoto ama dadka laga tirada badan yahay ha noqotee iyadu may dhicin bale kootadii ay kaga qaybgeli lahaayeen hanaanka doorashada dalka ayuu xisbiga kulmiye la iyaduna waa ballan qaad beenoobay waxa iyaduna bartan ku taalo warbaahinta waxa ballan qaadeen xisbiga kulmiye inay warbaahinta madax banaanidiisa ilaalinayaan inay noqon doonaan kuwa si cadaalad iyo sinaan ugu adeega warbaahinta dawladda gacanta ku haya muwaadiniinta Soomaaliland guud ahaan waxa ku qoran inay xurriyadda qowlka ilaalin doonaan inay noqon doonaan saaxiibka saxaafadda inay ilaalin doonaan xeerarka dalka ee saxaafadda inay tixgelin doonaan qodobada dastuuriga dalka xarigu ugu badnaa ee suxufiyiin ee Soomaaliland ka dhacay wuxuu dhacay muddada 3 bilood ah xisbiga kulmiye talada dalka iyaduna waa ballan qaad beenoobay tiirka labaad ay isagana aynu doonayna inaan wax ka odhanaa waxa weeyaan dhaqaalaha waxa ku jira kaabayaasha dhaqaalaha jidadka kowka xisbiga kulmiye bartan wuxuu ku ballan qaaday inuu dhammaystiri doono muddaxileedkiisa wadada Burco ilaa Ceeri Gaabo wadada Beligubadliya Hargeysa wadada Salaxley Hargeysa wadada Burco iyo Oodweyne wadada Dowgacad wadada Arabsiya Allah baday wadooyinka dalka wuxuu baan u haynaa anagu 13 kiiloomitir oo xariga ka jaray madaxweynuhu oo berbera ka dhawra wadada Ceeri Gaabo meel ay marayso lama yaqaan wadada Oodweyne iyo Burco lama bilaabin wadada Beligubadliya Hargeysa lama bilaabin wadada Allah baday lama bilaabin wadadii maxay tahay Dowgacad waxa laali iyo waxyadana ka hirgalay oo ka socda ma jirto waxa iyaduna ku jirta garoomada diyaaradaha waxa la ballan qaaday bartan oo ku qoran in la furi doono garoonka magaalada Boorama ee diyaaradaha in la furi doono garoonka magaalada Ceeri Gaabo in la furi doono garoonka magaalada Burco si isu socodka muwaadiniinta iyo dadka ajaanibka dalka ugu yimaada ay u hirgasho iska daa in madaarada la fure waxa la dayactiri kari laayahay kii Hargeysa oo dadkii ka soo dagay tira badnaantooda terminaal loo sameey kari laayahay muddada 3 sanaana wax madaaro la furay oo taariikhda xukuumadda xisbiga kulmiye ku jirta annagu ma hayno bartan waxa ku qoran iduna dekadaha in la sameyn doono dekada lagu haya in la sameyn doono tasaylac in la sameyn doono taamayd in la dayactiri doono ta magaalada Berbera bartay ku dambeeyeen iyaguna bulshada ka jawaabi bartan waxa ku qoran beeraha in Soomaaliland isku filnaansho wax soo saar oo dalaga ay gaari doonto 3 sano
oo maanta dhammaaday xukuumaddu waxay bulshada u beertay ma jirto dekada berbera hadday xidhato haddii dalka jaarka uu nahay ee Ethiopia oo barandhada xabuubta khudaarta ay nooc ay nooga yimaadaan iyadana mashaakil hadda uu ka taagan yahay xuduudda xidhaan xukuumaddu beer ay bulshada u beertay oo wax soo saar dalag leh oo dawliya lama hayo xabuub lama hayo barandho lama hayo wax allaali iyo waxay xukuumaddu iyaduna ballanqaadka ay ka fuliso beeraha ma jirto halkan waa tiirka shanaad isaguna waa garsoorka waxa la ballan qaaday inuu garsoorku noqon doono garsoor madax banaani leh oo la tixgelin doono madax banaanida dastuurka in la sameyn doono xeerar xoojinaya madax banaanida dastuurka garsoorka in la ilaalin doono dastuurka dalka muddadii 3 sano ahayd xarigii ugu badnaa iyo cabruntii garsoor lagula kaco waxa sameysay xukuumadda kulmiye inta dadka la iska soo xidho sida xoolaha muddo la iska haysto haddana la iska sii daayo tiirka u dambeeya oo ah tiirka lixaad waxay bartan ku sheegeen siyaasadda arrimaha dibadda waxay yiraahdeen waxaanu xoojin doonaa xidhiidhada aanu la leenahay dunida waxaanu xoojin doonaa aqoonsi aanu ka raadinayno midowga Afrika aqoonsi aanu ka raadinayno IGAD iyo midowga Yurub waxaanu xoojin doonaa bay yiraahdeen aqoonsi aanu ka raadinayno Mareykanka iyo jaamacadda Carabta waxaanu xoojin doonaa bay yiraahdeen xidhiidho cusub oo aanu samayno waxaanu culeyska saari doonaa bay yiraahdeen taanu soconaa ay qurba joogta iska daa dawladda kulmiye inay ictiraaf ka keentay qurba joogtii Somaliland ee isku duubnayd ee midka ahayd ee wanaaga iyo horumarka iyo walaaltinimada ka wada shaqayn jiray ayaa buqdiga iyo xumaha iyo naxliga ay dhex dhigtay laga soo kaban kari lahay ugu dambeyntii ballanqaadkii xisbiga kulmiye beenoobay 3 sano kadib waka waxqabadkiisu wuxuu ku bilaabmay xisbiga kulmiye inay balowdada bulshada boobaan waxaanu ku dhamaaday odogeydeen inay banjarle budh la dhacaan